asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalahey soo dhawaada saa ujeediin barkintaana rabaa inaan idala shargareeyo sidaan u samaystay iyo waxaan ka sameeyey soo dhawaada saa ujeediin barkintaaneeto saan u eg ayaan rabaa inaan bedelo soo dhawaada haddaa channelkay ku cusub tahay subscribe-ka taaba meesha hoose gududan waan kusoo bir insha allah saa ujeediin geedkaaneeto aan idin tusinayo waxa waaye geed oo loogu talagalay lugaha in la gashto winterka dollar store-kan kasoo helay waa mid u eg kursigayga adiga ra'yigan kugu siinaa waxay tahay haddaadan helin xataa mid saan oo kaleeto ah waxaa jira video kaleeto aan kula sheergareynayo oo aan ka sameeyey bustaha ee dollar store-ka gadaan 3 barkimood camal buu ii noqday isagana videogaas linki ku dhaganaa doona insha allah raac oo daawo saa ujeediin geedkan waa geedkii lugaha loogu talagalay $4 ahaa dollarna baan kasoo helay geedkan aan tusina waxa waaye geedka lagu furfuro meelaha tolan sim ribra la dhahaa soo geedkaasaan ku furfurayaa isagoo dhan adiga haddii aadan haysanin barkim oo aad ku tashi kan waxa waaye barkimaha guriga kuu yaala maarkin oo la yimaado kuraasta xataa waa bedeli kartaa sizekooda way yaryihiin labadaas xabo waxay ku noqon kartaa 2 xabo actually haddii aadan haysanin mashiin sewing machine aadan aqoonin sida loogu talo ama gacanta lagu talin waxaad sameyn kartaa hot glue-ga oo ganka maaragtay ayaa ku samaysan kartaa mid oo xoogaa fabrica loogu talagalay ama mid si fiican u qaban doonto meelaha timaha leha ka xiiraysaa si fabric to fabric isugu dhegto suus u kala foqin ma ay la fahanteen umalayna walaalahey saan idinku sharxayo videoganeeto waxa waaye channelkayga kala unique oo saaran yahay haddii aad rabtiin aad daawatay isagoo dherer badan but halkaneeto waxaan rabaa inaan kula wadaago isagoo dhaqso badan saa ugu faa'iidaysatid aan kugu dhiirigeliyo waxa soo socda winterkii saa guri u sharaxatid alaabahaneeto dadka jecel haddaa rabtiin aad soo gadato isagoo tolan waxaa laga yaabaa inaad kusoo heshay lacag fiican barkimihiisa wato labadii xabo maybe $30 ama ka badan xabadiina maybe $15 camal keesha laga yaabaa so aniga DIY aan kula sheergareynayo waxa waaye wuxuu igu cost garay waa ujeeda $4 mara aan hore u haysta wayaan baashan isticmaalayo barkinta guriga ii taali so adiga haddii ay alaabta guriga ku taalo oo aad tahayna qof jecel inuu wax gacanta ku samaysto ama nooc oo special ah different style ah waa ku kaasa hadda ka faa'iideysa videogan saa ujeediin meesha jiyaarka u baana furin meesha jiyaarka waxaan sameeyey gadaalan ka tolay meesha ugu horeysaan soo tolay marka ugu horeyso ma aana kala furin completely maana kala furin hal dhinacaan ka furay just inaan jiyaarka iyo geedka aan isku soo dejiyo dan hadda waxaan isku wada dhejinayaa 3 xabo dhinacaan isku dhejinayaa saa ujeediin maradii kale kama fujinin maxaa yeelay wuu iga caawinayay meeshaan ku tolay dufta awee waxay ahayd geeska ugu horeeya so walaalahey wax tolo waa ka faa'iideysan kartaan videoganeeto ujeeda alaab guriga ku taala casriyeynaysaa wax ka bedelaysaa haddadan aan videogan duubay waxay ugu soo dhacday maryaha oo shaalka oo dufta camal ah xataa waa ka samaysan kartaa you don't even have to soo gadatay wax oo aad ku bedeshid so alaab guriga ku taalay ayaa casriyeyn kartaa bedeli kartaa busta halaada isticmaalin oo guriga isaga taalo anyways waa ujeedin suu kusoo baxay gudihiis waa ujeedin waa isku tortolay aniga adiga haddii aad haysato barkin yariis ah oo la eg dhagdhag waay hot glue-ga isticmaalaysa haddii aad tulaysa xataa dhagdhag waay laakiin aniga waa ujeedaa tortolitaan kuu muuqda hadda laakiinse dhowr jeer hadda dhaqay looma jeedo caadi u egyahay so waxaan rajeynayaa inuu ku dhiirigeliyo videoganeeto haddii aad ka heshay iloow inaad thumbs up siisid haddii aad channelku cusub tahay soo dhawow subscribe-ka taaba meesha hoose guduudan waaye kusoo bir insha allah waa inoo videoga dambe ha iloowin daawo videoga kaleeto maybe inuu kusii dhiirigeliyo jazaak allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu